بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adduunyada xilligan aan ku noolnahay waxaa badan waxyaabaha nafta lagu madadaaliyo ee loogu raaxeeyo, waxyaabaha nafta lagu mashquuliyo, waxyaabo nafta caajis geliya ilaa aad gaarto heer aad nafsadaada ku qasbi weyso waxyaabaha xoogaa enerjiga iyo awoodda kaga bahan. sababta maxaa waaye maskaxdeena iyo nafsadeenu inta badan ma jecla waxyaabaha enerjiga iyo awoodda uga baxayaan ama waxyaabuhu qofku uu ku dhibtoonayo. sidaa daraadeed ayuu qofku iska rabaa inuu iska jiifo, inuu si raaxa leh wuxuu cuno ku helo, inuu telefoonkiisa maanta dhan furfuro, inuusan isdhibin oo naftiisa waxyaabaha ay jeceshahayna uu u sameeyo, waxyaabaha ay dhibsanaysana uu ka dhaafo. laakiin arrintaas waxay kuu sababi kartaa in adduunyada iyo aakhiradaba aad ku qasaarto. halkan waxaan kugu sheegi doonaa xadiis ka mid ah axaadiista xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam. xadiiskaasi marka aad u fiirsato xaqiiqa ahaan wuxuu ku siin doonaa qaacido noloshaada adduunyada iyo midaada aakhirada ah aad ku dhaqi doonto, oo haddii aad ku dhaqantana adduun iyo aakhiro aad ku liibaanaysid. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis saxiixa noogu leeyahay xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat. jannada waxaa lagu hareereeyey waxyaabaha naftu ay neceb tahay, marka waxyaabaha aad kasoo gudubto ayaad helaysaa jannada. jannadana waa waxa ugu weyn ee qofka muslimkaha uu raadiyo, waa nicmo iyo barwaaqo aan kaa go-eynin, kaa dhammaanaynin, aadan ka caajisaynin, oo aadan ka dhimanaynin, oo aadan ka baaba-aynin. bal sida nabigeena uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, jannadaasi waxaa laga helaa waxyaabo ishaadu aysan weligeed arag, dhegtaadaanu aysan maqal, xataa maskaxdaada aan kusoo dhicin. jannadaasi waxaad ka helaysaa wax kasta ood naftaada jeclaato. si aad naciimada u hesho waxaad u baahan tahay inaad ku qasabto waxyaabaha ay jeceshahay oo iska raaxaysiga ah, meelo iska fadhiga ah, macsiyooyinka inaad ka ilaaliso. saa daraadeed nabigeenu wuxuuna barayaa maadaama jannadu ay tahay shay weyn, wax weyn oo qof kasta uu raadinaya ay tahay inaad hesho, inay kaa xigto inaad naftaada waxoogaa yar qasabto. dhanka kale nabigeenu wuxuu noo sheegayaa marka nafta wax kastoo ay jeceshahay loo yeelo inay ku geynayso meel hoog iyo halaag ah. wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam waxufat innaaru bishahawaat. naartana waxaa lagu hareereeyey waxyaabaha naftu ay jeceshahay. macnaheedu waxaa weeyaan mar kasta ood naftaada waxay jeceshahay dunuubta iyo macsiyooyinka ay ka hesho, waqtigaada ood iska lumiso, waxyaabo qaar ood iskaga raaxaysato ilaahay uusan ogolayn aad u yeesho, waxay ku wadaa hoog iyo halaag oo ah naarta, oo ah meesha ugu xun ee qof bani aadama uu galo, cadaab aan weligaa kaa dhammaanaynin, oo aadan ka dhimanaynin, oo aan kaa go-aynin, kaa yaraanaynin, inuu kugu bato maahan, cabitaankeeduna uu yahay carunka ahlu naarka ee karkaraya calooshaada iyo maqaarkaada iyo jirkaaduna sakan kasta ay dildilaacmayaan weeyaan. saa daraadeed nabigeenu wuxuuna barayaa mar kasta oo wax wanaagsan oo qiimo leh aad rabto inay u baahan tahay inaad nafsadaada qasabto, maadaama naftu si guud aysan jeclayn waxyaabaha dhibta ah, waxyaabaha makaarihda ah, inay nafsadu enerji ka baxo, in waxyaabo ay jeceshahay loo diido nafsadeenu ma jecla. saa daraadeed waxaa u baahan tahay inaad nafsadaada xakameyn karto oo aad u diidi karto waxyaabaha ay hawoonayso, maba kusii jirto haddii ay tahay macsiyo iyo dunuub, in nafsadaada aad khasbi karto ood ku khasbi karto cibaadada, waxbarashada, soo jeedka, shaqada iyo wax aqrinta. markaasi ayaad adduunyadana meel sare ku gaaraysaa, aakhirana ilaahay jannooyinkiisa uu ku siinayaa. allah subxaanahu watacaala markuu noo sheegayay dadka ahlu jannaha ee jannada iska leh laba tilmaamood oo weyn ayuu u sheegay. allah wuxuu yiri subxaanahu watacaala wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa cani ilhawaa faina aljannata hiya alma'waa. qofka ka cabsada ilaahay subxaanahu watacaala hor istaagiis, nafsadiisana ka reeba waxyaabaha ay hawoonayso oo ay jeceshahay, janno ayaa hooygiisa ah. waxa ay la micno tahay xadiiskii hadda aan soo qaadanay oo ah in ilaahay hor istaagiisana aad ka cabsato, naftana aad ka celiso waxyaabaha ay raboonayso oo ay jeclaanayso. haddii qofku nafsadiisa uu raaco oo meela macsiyada ka jirto hadday u horkacdo iska daba raaco, waxay dhahdo ayada ay jeclaato oo xumaan ah uu u raaco oo nafsadiisa xakameyn waayo, ilaahay wuxuu noo sheegay qofkaasi inuu ilaah ka dhigtay nafsadiisa waxay jeceshahay. allah subxaanahu watacaala wuxuu yiri afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu wa adalahu allahu calaa cilmin wa khatama calaa samcihi wa qalbih وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بل كورما قفك إلهي سكدكتي هوديس، يعني واحد نفتي سوء جعشها آياتاس وحين نودي سامرك إن نفتهن أي هركعان ونقطه. مصطفى محمود أي الله يشجع إنه يري أنت إنسان فقط عندما تقاوم ما تحب
وتتحمل ما تكره waxaad adiga bani aadam tahay oo bani aadamnimadaadu ay sax tahay marka nafsada aad ka celin karto waxyaabaha ay raboonayso oo ay jeceshahay isla markaana aad u dul qaadan karto oo aad ku qasbi karto waxyaabaha ay dhibtoonayso saaki oo iska hurday waxbarashada oo ka sagsaagtay TikTok iyo mobile iyo internet oo aad timekaada inta badan ku qaadatay shaqada iyo culeyskeeda oo aad ka carartay adduunyadan waxaad ku noqon doontaa qof liita aakhirana Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxaad ku noqon doontaa qof aan darajo iyo boos ku lahayn saa daraadeed ayay Soomaalidu hore u tiri waxaan loo dhibtoonin laguma dheefsado aad iyo aad u mahadsantihiin walaaleyga qiimaha badan meel kastoo aad joogtaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh